soo wareegtay waqti ka badan 25 sano taniyo markii ay Israa'iil iyo Falastiin nabad ku heshiiyeen. haddase waxaa loo arkaa in nabaddu ay kasii fog tahay meeshii hore. balse waa maxay sababtu? siyaasadda labada dhinac ayaa u muuqatay inay isbedeshay. sanadihii u dambeeyay Israa'iil waxaa ku soo badanaya xisbiyo xag jira iyo kuwa diiniga ah oo aan aaminsanayn in dhul qaybsigu uu nabad horseedi doono. ololihii doorashada ugu dambeeyay ee uu ra'iisul wasaare Netanyahu ku guuleystay xalka ah labada dowladood lama soo hadal qaadin. dadweynaha taageersan xalka ah in dowlad madax bannaan oo Falastiiniyeed ah la sameeyo ayaa aad u sii yaraanaya. Falastiiniyiinta laftooda kala qaybsanaan siyaasadeed ayaa qalqal gelinaya mashruucooda qaran. dhan waxaa taagan ururka Xamaas oo loo haysto inay yihiin urur argagaxiso ah balse iyagu ma aqoonsana jiritaanka Israa'iil. Xamaas ayaa ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee Falastiin 2006 balse khilaaf dhexdooda ah kadib Gaza oo kaliya ayay maamulaan. dhanka kale waxaa jira maamulka Falastiin oo xukumo qayb ka mid ah daanta galbeed oo uu hogaaminayo madaxweyne Mahmoud Cabbaas oo hore wada hadal nabadeed la yeeshay Israa'iil. dadka Falastiin iminka waxay ku wareersan yihiin hogaamiyayaashooda. waxay sheegayaan in dawladdii loo ballan qaaday ay u eg tahay mid aan la gaari karin sababtoo ah dadka Israa'iiliyiinta ah ee soo degaya dhulkooda ayaa sii badanaya. tirada Israa'iiliyiinta ayaa ahaa 200,000 sagaashameeyadii. haddase tiradoodu way 3 jibaarantay. deganaanshahoodu ayuu caalamku u arkaa mid sharci darro ah inkastoo Israa'iil aanay ku waafaqsanayn. Falastiiniyiintu waxay leeyihiin ilaa dhismaha socda la joojiyo wada hadallada ma imaan doonaan. waxa kale ee isbedelay taniyo heshiiskii 1993 ayaa ah in Israa'iil ay u dhisanayso darbiga oo ay isaga xajinayso daanta galbeed. waxaa dhismaha lagu bilaabay banaanbixii labaad ee Falastiin. Israa'iil ayaana sheegtay inay dadkeeda uga ilaalinayso weerarada balse Falastiiniyiinta ayaa u arkay inay tahay dhul badsasho. waa dhab in rabshadu ay abuureen kalsooni darro iyadoo kumanaan qof ay ku dhinteen khilaafyadan kuwaasoo badankoodu ay ahaayeen dad rayid ah. shacabka Israa'iil ayaa iyaguna qaarkood dil iyo dhaawac bay u geysteen qarxyada ismiidaaminta Falastiiniyiinta iyadoo qaarkoodna la tooreeyay ama la toogtay. dhanka kalese Falastiiniyiinta shacabkooda ayaa ku dhintay ama ku dhaawacmay duqeymaha cirka ee Israa'iil sidoo kalena kuwo badan ayaa ciidamada Israa'iil ay toogteen markii ay howlgalladu socdeen. waqti dheer Mareykanku wuxuu hayay shaqada dhexdhexaadinta balse Falastiiniyiinta ayaa xariga u jiray nidaamka madaxweyne Trump iyagoo ku eedeeyay inuu la safan yahay Israa'iil. waxay ka careysan yihiin go'aankiisa ah in Qudus uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil oo uuna safaaradiisa halka u wareejiyay iyadoo qorshaha dawlad carbeed inay Falastiin yeelato aan muuqan. iminka ma jiro dhexdhexaadiye kale oo ay labada dhinac ku kalsoon yihiin.